si waxaa la igu soo tarxiilay afduuba oo dhuumashaal ah waxaana ka dambeeyey rag Soomaaliya oo macruufa bulshadoo dhan ay taqaano iyaguna is yaqaano ana aan aqaano ilaahayna uu yaqaano yaa ka dambeeya arrinkan oo adiga ku soo tarxiilaya dadka kala soo tarxiilaya dadka Soomaalida ee aad leedahay waa ay ka dambeeyaan waa kuwa haddaad noo cadayso waxa weeyaan daraad waxaan arkay nin le aad duuraysanayso idaacadda laga soo daayo le dad ganacsataa lagama soo tarxiilin oo laga soo tarxiilay ma jiraan waxbana maanan tarxiilin waa fulaynimo qofka waxa uu sameeyay inuu inkiro oo yiraahdo qofna maanan tarxiilin marka aniga waxa ay soo tarxiilin in la yiraahdo Cali Bir oo Cali Abdi Filan oo filan aad u bixisay waa filan Cali Bir la yiraahdo oo reem mahad ah iyo nin la yiraahdo Umar Maxamuud reem mahad ah iyo nin la yiraahdo ninka waa ninka dhulkeygii oo $200,000 ku fadhiya ninka haysta waaya hadda haysto dhulkeygii saa dhacay dadkiisoo dhan way og yihiin arrimahan ma la socotaa safiiradu waa maasantahay xasanow wuxuu yiri eelka tiidhigi wargotoy meesha safaaradda Soomaaliya ee meesha joogto safaarad Soomaalida u shaqeysa ma aha waxa gabadhan ay meesha ugu dhagan tahay kullay waxa la yiri korodhici way geed adag u haystaa wasiirka arrimaha dibadda inuu ka dambeeyaan u maleynaya gabadhan waxa ay meesha u joogta qaabka ay u shaqeynaysan qaab Soomaaliyeed ma aha bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta caalamka naga daawanaysaan wadanka Zambia ayaa waxaa jirtay in dad badan oo Soomaali ah oo ganacsato culumaa u diin aqoonyahan in laga soo tarxiilay wadankaasi Zambia waxaa safiirad ka ah Xaawo Xasan Maxamed waa danjiraha Soomaaliya u fadhida wadankaasi waxaa kaloo la eedeynayaa urur lagu magacaabo Zambia Somalia Association Friendship Association ayaa la eedeynayaa oo hab qabiil dadka ayay u soo dhoofiyaan la yiri waxaa jirtay soo dhoofintii ugu dambeysay in uu ahaa ninka lagu magacaabo Suldaan Guutaale oo hadda weli ku xayiran dhinaca iyo magaalada Addis Ababa airportkeeda muddo 7 ku xayiran haddaba dadka halkaasi laga soo masaafuriyay waxa kamid ah oo haddana khadka escape-ka si toos ah ugu jira Sheekh Salaad Aadan Xasan oo jooga haatan magaalada Dar es Salaam ee wadanka Tanzania Sheekh Salaad waa ku salaamay marka koowaad marka labaadna waxaan rabaa inaad bal inooga dhacdo qaabkii lagaga soo tarxiilay wadanka Zambia وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأكو السلام يا حسن عبد أديك يا خيار هذا أنت كل جوك تبي دمان ومضي الصوماليات أنت عدك يا مغليسة أدبا نوما سنتين وإنك ما دعينا يا بعدين أنت أدنى سورة هذه السنة جهدي قانو بحسن ولا إن شوت لي هذا كاغا ورمقاب كي زامبيا لا إيغا صوت ترحيلي أنا كليل إيغا صوت ترحيلين dadka laga soo tarxiilay ganacsatada ah culimada ah aqoon-yahanada ay laga soo tarxiilay Zambia Tanzania way joogan Uganda way joogan Kenya way joogan Soomaaliya way joogan wadamada dariskoo dhan bay joogan marka wax aniga ugu bilowday ma aha igu dhamaaday ma aha waa arin soo taagan oo hore u soo taagnayd ilaa intay sii jiri doontaan aan garanaynin laakiin waxaan filayaa in gabagabadeedii la gaaray oo la joogo aniga qaabkii la iga soo tarxiilay walaale waa qaabkii dadka kale looga soo tarxiilay si waxaa la igu soo tarxiilay afduuba oo dhuumashaal ah waxaana ka dambeeyey rag Soomaaliya oo macruufa bulshadoo dhan ay taqaano iyaguna is yaqaano ana aan aqaano ilaahayna uu yaqaano cid walbana ay taqaano waxaa la iga soo tarxiilay anoo gurigeyga jooga ayaa la ii yimid telefoonka la iga qaaday soo bax baa la yiri gaarigeygan markaan soo baxay oo soo labistay gaarigeygan galay ma galaysid gaarigan gal baa lagu yiri furihii gaarigana waa la iga qaaday telefoonkiina waa la iga qaaday waxaa la i keenay qol sidii la ii soo waday qol baa la i keenay sawirraa la iga qaaday kadibna waxaa toos la ii geeyey airportka
sawirada markii la iga qaaday niman Soomaali ah qadka ku jiray waxay tageen safaaradda Soomaalida ayay tageen nimanka immigrationka safaaradda uma tagi karaan waxa uu tagay niman Soomaali ah ayaga tigidhka soo gooyay ninkii qunsulka ahaa ee meesha joogay Xamuud baa la yiraahdaa kullay waxaan filayaa inaad la xiriiday ama aad kullay akhbaaraad badan ay hayso ummadda soo wada wareysatay ninkaas aad baan isu naqiinay isagii baa loo yimid waxaa lagu yiri rag Soomaali ah oo hebel iyo hebel iyo hebel aan ku dhahayo oo sawiradoodii magacyadooda dhan baan hayo iyo familkii ka soo jeedaan dadkoo dhan ay og yihiin ayaa u tagay waxay ku yiraahdeen nin xanuunsan oo koomo ku jira oo hadli karin baan wadnaa waxaan rabaa inaad noogu goyso warqad go home oo waddanka Soomaaliya aan ku gaarsiino warqadii uu ninkii u gooyay mar dambe oo magacii dib intuu u fiiriyay saaxiib baanu ahayn waan isnaqiinay eelaboorku igu daba yimid 9 saac oo habeenimo ayuu eelaboorku igu yimid nimankii sharciyada ay dhoofinayay ay waday wala dagaalay warqadiin uu ka qaato damcay gacan bay isu qaadeen sidaas walaal diyaaradda lagu soo saaray Ethiopia lagu soo dejiyay kadibna diyaaradii Soomaaliya la soo saaray waa sidaa waayahay marka yaa ka dambeeya arrinkan oo adiga ku soo tarxiilaya dadka kala soo tarxiilaya dadka Soomaalida ee aad leedahay waa ay ka dambeeyaan waa kuwa haddaad noo cadayso walaal dadka Soomaalida oo ka dambeeyo wax qarsoon ma aha aan filayaa bulshada Zambia joogta inaad weydiiso ama meel walba joogta waddo dhan baa ku sheegaysa iyaga meel walba la taagan iyaga wax ay qarsoon